بسم الله الرحمن الرحيم. بهوين حسبga ucid saaka wuxuu safar booqasho ugu yimid jeelka wayn ee magalada gobolka Gabiley kaas oo aan ku soo booqanaynay saxafi ama mujaahid yuusuf gaboobe xaaladiisa caafimaad iyo sida loola dhaqmay waxay ka warrami doona dadka iga dambeeya laakiin waxaan halkan mar labaad maadaama xogay saxaafada aan ahay aan mar labaad ka cambaaraynaya xadhiga ama xukunka qarsoon waa xukun qarsoon ee magaranaysa sharci darrada ah ee lagu qaaday mujaahidka yuusuf gaboobe daniyar ka warramo maalintii maxkamadda la dhageysanayay kiiskiisa waan joognay goobjoog baan ku ahayn waxaan imaka ay sheegeen markaan maxkamadda u tagnay war yuusuf gaboobe la waanigi dhageysanay maxkamadda maxaa ku xidheen waxay tameebay yiraahdeen waxa ka ay xumaa oo caytamay maxkamadda horteeda ka caytamay oo waliba ka handidaad ka sameeyay iyo hanjabaad oo lahaa aniga sharciga iyo ma garanaysaa iyo fulin ana xukuma wuxuu ahaa wasiirka amniga ama wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliya cali maxamed waran cadde markii maxkamaddu ay xagga dambe mareysayna waxa maxkamadiiba waxa khalkhal galiyay wasiirka ayaa galiyay waayo markii loo ogolaan waayay looyarkiisii inuu su'aalo weydiiyo wasiirka markii su'aalihii uu ka jawaabay ninkii garsoore ahaa aanu oran maayo garsoore wuxuu ahaa kaaliye uu ogolaan waayay inuu wasiirka si toos ah u weydiiyo looyarka yuusuf cali maxamed waran cadde ayay ka dareereen waxa weeye markaa xukuumaddu way fulisay kayskan yuusuf gaboobe way fulisay adduunyahana waxaan u sheegaynaa inuu kayskaasi yahay xaq darro ku dhacday iyo sharcigii dalka oo lagu tumanayo marka waxaan ku soo dhaweynayaa xogay arrimaha bulshada way